ضوحي كاس دركالك روبدو ضوح وكاس ودركتا بيو مينا مصنع ضوء سوق عسما انتاسيين كسي بدن إنه روب ما شاء الله وحنا إنه روب كسي في عنا وجوده إلهي إنه عالغير غطنا سيو وتاس أركه صح تمرتي إن روب تمرتي نقبح ذا ونسكعنا ونعمنا وأنت ما شاء الله الحمد لله هذا لكن ضلك أبارة كجرت السماء ضلك أبار عم بكجرت ما تصبت عم بكجرت لكن كذا كان حنا لهي ضلك أيام قربها تشوجا ضلك نوصل لابتها كعليها وحقفتها وما تسند مركا عبد برخدو إمك دول نوردن وحاتري مركو رؤبدا دول نوردن حق وحين نقطة بيو سماء وبيو نسك نقطة وبي أوكي هذا لكن أبارة ضلك كجرت أبارة ما كجرت ما تصبت من بعده كجرت وكاس ضلك سا أريد إنه نوعه كل حياي يا أريد ما أقول لكن دي حالة أسكيرة حالة أسكيرة marka geedka xaggaas noo xaatiri timirta yaa ka soo saartay waa timir ka saarnaa marka qurbo joogta reer awdal waxa ku waran lahayd dalkiina soo laabta oo maalgeliya Soomaa dalkiina soo laabta oo maalgeliya ayaan leeyahay oo ka warhaya dadkiina oo ka warhaya ummadina Soomaaliyeed waa mahadsanid ayo walaal waa sida arkaysiin xaggan waa dooxii gargaara marka abaara hadda dalka ka jirta laakiin intan oo dhan markuu roob da'o wabi iska noqotaa meeshan dooxan biyo noqotaa hadda laakiin nasiib daro abaara ka jirta waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu xaalad dadkeeni u fuduudiyo oo roob barakaysan noo soo dejiyo xaggaasna waa geedkii timirta Abdi Barkhad ka hadlayay dhulkan waa dhul barwaaqaysan oo barakaysan inaan laga faa'iideysto fiican tahay ayo aan islaamay dhamaantiin noo socota ساعة بركات وليال ما أنت حان جوجنا مجال اللوجهية أو أودل كتالة ومجال حيبات هذا إن شاء الله بدأ نادينا ويرصد بعضنا كدمنا حاسمين مجال عن يرتوسي أو روح دير حتى عن الوداع صدق لنا إن شاء الله حقنا ورك كلنا للسعوديين سلام قالنا نديره السلام عليكم وبركاته وليال هذا waxaan la joogaa Cabdiraxmaan waxaan joognaana xeebta Lughaya marka Cabdiraxmaan soo dhawo
بل نفهنسي لغاية محا عن كتها iyo de maxaa hadda qaybta xeebta gaar ahaan ka shaqeyn jiray iyo fursadaha de lagu hayo malahan ka jiri karto hadda de focus attention la siiyo de la maalgeliyo degmada lagu hayo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ورت مقعيق هذا خوشة وإن شاء الله تعالى وحل إلى عبد بطاح عمر عبد الرحمن بطاح عمر إن شاء الله تعالى لو كي هرتا هو يجد الحس كويان وبدأ آدك بعد آدك إن خيرات كبدأ إن شاء الله تعالى كلونكي وحوى بنمعات كستوي بوحدة ضفي كتاه إن هل كان واحد وين والشركة دي أهو رسالة فران قرب جوهر سومال لنا وهير أوضل ولي بقى فران وين قرب جوج تاسي وين دقاجيني الحمد لله الجنة دي وكان الجنة وكل كيلا خدتي وحقول فتي سنابي دي بقول فتي سنابي دي كبعدنا قرب جوجتي محاي هذا وحي دخلي هوس بوضعي عقبة اللبادة تمدي واحد ويان وحالة دين عكا حاجة كشيء واحد ويان وقال جيه وين كلون كمرك على صاروا يا لقليني كلون كمرك على قال جيه لكنا يبيان على جرجال على دم استرانا واحد لو قاعد يجري محاي قاري كلا برفل يا لقوا حرين جري كوعلين هذا waxaan joognaa degmada Lugahaya xeebta Lugahaya kalluunkii wada laga soo keenay waa kaas ma sha Allah yaarkiisiin kalaan beeraado ama kuwa qurbaha jooga ama kuwa dalka jooga markadaas dalkiina taala ka faa'iideysta kuwa kiina ma gasho dekadna bis markaa wax ka sii badan la keeni karo iyo laami horta laamira ugu horeeyay xagana ku jira kalluun kale ma sha Allah kalluun far badan arkaysa zoom ki amidar baakana xagana ay ku jiraan kalluunkana bed kadibna la soo saaray al miisaami hadda la soo dejiyo waa fresh ma sida kan qurbaha 3 sano كلاسيك الجوديني وكدبنا كانسر يو على حنون كودا Papai, relo kaya naya, relo kaya manay, batay makakai manay, manay, ini ga.
عيد مبارك باي وأنا صلاني أنا سدايا يا أنا سدايا السلام عليكم وبركاته وليال هذا waxaan joognaa baraf dhaliyaha kalluumaysiga degmada lagu hayo qoraxda waxa inaga dhacday dhulka intuu sii maroobaadin waxaan door yar su'aalo weydiinay Ibrahim iyo Xamid oo ila jooga oo xaqan ka shaqeeyo oo na fahansiinaya sidii meeshu u shaqeyso marka ku soo dhawaara aad iyo aadna mahadsantiin Ibrahim iyo Xamid بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu Ibrahim Ismaan waxaan joognaa degmada Luqaya waxaanu ka shaqeynaa maxay ahayd kalluumaysiga barafaliyaha qaybta barafaliyaha deeta qaybta barafaliyuhu kolba shaqada ee badda ayay ku xiran tahay kolba sidii maxay ahayd ay shaqada baddu tahay ba loo shaqeeyaa dibadeeto kolba sida maxay ahayd ay qolada baddu ay ku soo xidhato meesha ba barafaliyahana looga shaqeeyaa muddo barafka uu dhaliyaa amba maxay ahayd loogu sameeyaa kolka waanan qaybtii degmada Luqaya weey kolka qaybta kalluumaysiga weeyaan halkaan u joognaa okay marka baraf dhaliyaha engine-ka hadda sira u maqlisiin motorka dhinacan ka shidan motorka ma waqti kastu shidan yahay mise waqti gaar ah la shidan ma yana waqtiyada qaar baa la shidaa maxay ahayd in kastoo ay cadceed kuleyl u jiro oo maalintii una shaqeyn habeenkii baa la shidaa kolkay shaqadu ay jirto kolka inta habeenkii baa lagu shaqeeyaa okay marka markii shaqada aad u badan tahay umba ilaa habeenkii ilaa subaxda uu gaari karaa lagu shaqeyn karaa marka kulleeyde waa la iska dareemay horta caqabada ugu weyn in laami la'aanta tahay laakiin laami la'aan xitaa jirta ayaa la arkay in suuq jirto oo kalluun in loo baahan yahay oo taasna waxay ku tusaysaa hadduu yani laami meesha ka jiri lahaa in businesskan ganacsigan aad u socon lahaa Soomaalida مثلا وردي إلى هذا اللام آد حي اللام إلى هذا هي باور تطاس ماشى أو تجيان ومحا هذا معنى كستبى تجيان ده كل كاب محا هذا وي كرتال لام إلى أنت أصي باور لا أنت ويسك كرتا باور تروح خيرت هاي برشة بدنا عن كل عنا ماشى okay marka horta kulay videogan waxa loo tala galay dadka reer awdal ama dalka joogaan ama qurbaha joogaan inay la socdaan xaaladda gobolka warga ahaan degmadaha xeebaha ku yaala siriid xitaa dhulkooda dhisan karaan waayo horumarka qof kasta gobolkiisa isaga dhisa Soomaaliya horumarkana dadku deegaanka iyo gobolka ka shaqeyn karaa marka maxaa isleeyahay kulay Luqaya waxa loo caanay ku tahay xeebta iyo kalluunka maxay kale isleeyahay haddii bal laami jiri lahaa maxaa kale ka socon kari lahaa Luqaya kulay shaqo abuur badan dhici lahaa waxaan aaminsan xitaa malaan inay magaalooyinka kale gobolka aad ka sii weynaan lahaa sidoo kale way dhici kartaa haday shaqooyin maxay ahayd meesha ay maxay ahayd dadka u dhashay amba dadka maxay ahayd dalkooga aad ay ka shaqeynayaan amba degmadooda ay dhisanayaan maca kuwa qurbad joogta waanu salaamayna salaam baan u diraynaa inay dalkoogana waxaan ku leeyahay awsan noqdaan waxaan ku waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan annaguna waxaanu ka qaban karnaa aanu ka qabanno okay sorry horta waxaan doonayaa dhamaantiin inaan geliyo waqti yar adagaan imaado qoraxda yar degto videoga yar soo dhawaanaysa dadka wajigooda si fiican loo arko marka gudahan sii galnaayo engine-ka si uu shaqeeyo sidoo kale waanu soo eegnaa waa tagi doontaa maxay ahayd waa soo arki waana maxay ahayd ka duubi doontaa kolka sidoo kale annaguna waan salaaminaa inta iyada qurba joogta ee joogta iyo inta iyada joogta sidoo kale أيوة آدي هذا وما سنتين إبراهيم وحامد ساعة بركاته ليال هذا وحان جوجا حيبة اللوهاية بدي سرار كيسيني قدام بيسا حرب هذا إن يد باشو لكن أنت أن يد بالن حرب هنا أن ده إيش نادول قروح بدن جارهان ده تذكر ديجان كلوهاية يو رير أودل دول كينا دستا أما دل كجوج أما قربها جوج gobol kaar maalgasho ku sameey waa ummad kasta ka gobol koora dhista marka waa dhul barakaysan ka faa'iideysta laami dhista iyo dekadayo airport dhista sida horumar u samaysatiin waa aqoontu in noqoto aqoon la taaban karo aqoon in la sheegto ma aqoontu in noqoto mid la taaban karo insha Allah taasaan oran lahaa inta kale hadalka badan aniga deeni
quruxda magaalada iyo xeebtan la wadaagi marka ku raaxaysta Nah, makanya malah ya.